marunbaa in dahab tiro badan laga helay magaalada barakeysan ee Maka ee dalka Sacuudi Carabiya. Warbixintan ayaan ku eegi doonaa keed dahab ah oo ku fadhiya dhul dhan 100 kiiloomitir oo laga helay agagaarka Al-Khumra ee magaalada barakeysan ee Maka, mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida. Sacuudi Carabiya oo 60 sano ku tiirsaneyd saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, imika ma waxay u guuri doontaa dahabka? Barnaamijkan ayaan ku faahfaahin doonaa, muuqaalkana sii faafi. Waddanka Sacuudi Carabiya waa mid ka mid ah dalalka leh dhaqaalaha ugu badan dunida. Sacuudigu waxa uu ku jiraa 20ka waddan ee caalamka ku hogaamiya dhinaca dhaqaalaha. Inta badan dhaqaalaha Sacuudiga waxa uu ku tiirsanaa 10 sano ee la soo dhaafay saliidda iyo gaaska dabiiciga ah. Waana dalka leh keydka ugu badan ee saliidda iyo gaaska dabiiciga ah guud ahaan dunida. Kadib dhowr iyo 60 sano oo Sacuudigu uu ku tiirsanaa saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee laga soo saaro carrada dhulkan ku yaala koonfur galbeed ee qaaradda Asia, waxaa la filayaa in Sacuudigu uu u guuri doono ku tiirsanaanta dahabka. Dhulka barakeysan ee Maka waxaa ka soo baxaya war farxad gelinaya shucuubta reer Aala Sacuud, waana in la helay keed dahab ah oo ku fadhiya dhul dhan 100 kiiloomitir oo bed ah. Dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in la helay dahab xaddi tiro badan leh, kaas oo laga helay magaalada Al-Khumra ee gobolka Maka. Tijaabooyinkii ugu horreeyay ee la sameeyay ayaana muujiyay in inta la filayo uu ka badan yahay dahabka dhulkan ku jira. Dhulka uu dahabkan ku jiro waxaa lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 100 kiiloomitir ilaa 123 kiiloomitir oo ah agagaarka Al-Khumra ee dhulka barakeysan ee Maka. Waxaa la aaminsan yahay in dhaqaalaha Sacuudiga uu wax badan ka bedeli doono keydkan dahabka ah, inkasta oo markii horeba ay Sacuudi Carabiya ku jirtay kaalmaha hore ee dalalka leh dhaqaalaha ugu badan. Hanti aanan loo dhibtoon oo aan loo fikirin ayaa Alle subxaanahu wa tacaala dhex dhigay waddamada muslimiinta oo dhan. Dahab, saliid iyo gaas dabiici ah, nooc kasta oo macdan ah, dhul daaqsimeed ilqabad leh iyo jawi isku dhafan ayuu Alle subxaanahu wa tacaala siiyey oo uu ku dhex beeray ummadda muslimiinta. Sacuudiga waa dalka sida weyn uga faa'iidaystay nimcadaas Rabbi, isla markaana ka sameeyay dhaqaale fara badan. Dahabkan cusub ee laga helay magaalada barakeysan ee Maka ayaa loo arkaa il dhaqaale oo weyn, waxaana uu qayb ka yahay waxa la isku yiraahdo Vision 2030 ama qorshaha 2030 ee looga guurayo saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, isla markaana loo guurayo dalxiiska iyo dahabka. Waxaana horboodaya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Dalal dhif iyo naadir ah oo muslimiin u badan ayaa qaba nimcadaas oo kale. Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalkaas, waxaase lagu kala duwan yahay hadba sida ay uga kala faa'iidaystaan. Bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana laag saar oo sii sheer gare